barnaamij ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ururka isutaga dhalinyarada iyo ardayda ay ogaadeenaya loogana soo horjeeday dowladda Itoobiya ayaa ka dhacay banaanka madaxtooyada gobolka Minnesota. Barnaamijkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka ayaa waxa ay ku muujinayeen sida ay kaga soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen gumaadka xukuumadda Zanaawi ku hayso dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaali galbeed ee ogaadeenaya. dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cadaalad, nabad iyo xorriyad, waxayna cod sare ku qaadayeen hal ku dhigyo ay ka mid ahaayeen. We need peace. We need freedom. We need freedom. We need justice. We need justice. We need peace. We need peace. We need freedom. We need freedom. We need justice. Arab Maxamed Aadan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijkan ayaa ka warramay ujeedada loo qabtay dibadbaxan waxa uuna carabka ku dhiftay in meelo kale oo caalamka ah ay mudaharaadyo dadku isugu soo baxeen. waxa aanu runtii maanta isugu soo baxnay halkan daanu nahay jaaliyadda Soomaalida ogaadeenaya ee gobolka Minnesota mudaharaad aad u ballaaran oo ka dhacay caalamka oo idil dacaladiisa oo aanu kaga soo horjeedno gumaadka ay qaawan ee Itoobiya dawladda qowleysatada Itoobiya ay ku soo qaaday shacabka Soomaalida ogaadeenaya oo dulman gumaadkii awal jiray ee boqolaalka sano soo jiray ayaa maanta waxa ku soo kordhay oo cusub in China saliidii khayraadkii wadanka oo aad ogtihiin uu wadanku yahay rich oil in laga gado marka shacabkii ayaa waxa la leeyahay barakicin ka guura wadankii oo dhan mudaharaad aad u ballaaran oo ka dhacay caalamka oo idil wuxuu ka dhacayaa dunida oo dhan Mareykanka oo kale wuxuu ka dhacayaa Minnesota, North Dakota, San Diego, Los Angeles, Denver, Colorado, Canada oo kale ka dhacayaa Dallas, Texas hadduu ka socdaa London wuu ka socdaa Sweden. dadkii dibadbaxayay ayaa waxa ka mid ahaa wiil dhalinyaro oo Mareykan waxa uu sheegay in sababta uu barnaamijkan u yimid ay tahay kadib markuu arkay dhibaatada ka jirta deegaanka Soomaalida iyo sida ay caalamku dhagaha uga furaysteen gabadfalka lagu hayo dadkaasi masaakiinta ah. Well, honestly, it hurts me to know that there's something this bad going on to our own Muslim brothers and sisters. And, you know, no one's even taken the time to even care about this. And it hurts that there's been genocides like Darfur that happened, like the current situation in Palestine. And the international community jumps in and helps, but no one's done anything to help for... hooyo Haweeye Xirsi waxay ka mid tahay dadkii qiiraysnaa ee barnaamijka joogay waxayna ka warramaysaa dareenkeeda iyo sida ay uga gubanayso dadkeeda dagaalka lagu hayo. saad ogtahay waxaan gumays aad u dheer ayaa dalkayga ka jiray xasuuq baa ka jiray kufsi baa ka jiray barakicin baa ka jiray maanta waxa ku soo korodhay annaga resource gaaska yagi yani barwaaqadii ilaahay annaga na siiyay in ay soo haweystaan China inay yimaadaan isagoo Mala Zanaawi markuu ummadii xasuuqii uu ka soo baxay uu doonaya maanta khayraadka dhulka yaga ilaahay nagu manaystay inuu ka gado China. inkasta oo ay jirto in dawladda Itoobiya ay wado dadaalo ay ku doonayso in deegaanka khayraadkiisa lagu soo saaro isla markaana uu jiro heshiis ay la gashay dalka Shiinaha si ceelal shidaal loogu qodo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya haddana dadka Soomaalida ee deegaanka qaarkood waxay qabaan in shidaal iyo khayraad la soo bixiyo ay ka horeyso in dadka xuquuqdooda la ilaaliyo ammaan iyo xorriyadna la helo waana tan Haweeye oo arintaasi tilmaamaysa. dal markuu isagu xor yahay buu ikhtiyaarkiisa iyo khayraadkiisa kula soo baxaa maadaama anagu aanu gumaysi ku jirno dhulka iyaga khayraadka ku jira ma ogolin ilaa aan ka xorowno oo anagu ikhtiyaarka iyaga aan ummadii horumarka iyaga ugu samaysano in maqale ka yimi oo 30 sano isagu soo dagaalamayay inuu khayraadka iyaga maqale geeyo saasaan u ogolayn. Gandhi waa dibadbaxay wajigiisa ka muuqato caro indhihiisana laga garan karo inuu dareen qabo waxa uu xiran yahay funaanad ay ku qoran yihiin erayo badan oo xanuun tilmaamaya isagoo codkiisa sare u qaadayo aad moodo inuu jiida hore ee dagaalka joogo ayaa waxa uu yiri dhulkan annaga iska leh China ma leh Tigreena ma leh dadkii dhulka lahaana wuu dulman yahay inta uu dadkaasi dulman yahay bataatan lama taaban karo dhulka dadkana annagu maana soo saaran kari waayin aqoonteedna maliin dhulkanaga gumaysi buu ku jiraa military baa ku haysta markuu waxa aan iska xoreyno annaga la soo baxayna nabadda ay sheegaan annaga nabadii waqtiga hagaajisanayna khayraadka annaga iyo barwaaqada soo saari horumarinta annaga samayn before arintaas inta nabad laga helayo inaan xornimo ka helayno no ma ahan markii ugu horeysay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida ee Itoobiya ee Minnesota iyo meelo kaleba ku qabtaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaalida ee deegaanka
hase yeeshee waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn isbeddelka ay bannaanbaxyadani ku yeelan karaan siyaasadda Itoobiya ee ku aadan deegaanka Soomaalida ee Ogaadeen iyo weliba aragtida beesha caalamka ee ku wajahan deegaankaas. Maxamuud Mascade, Madasha, Minnesota.